السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير يا برادة أنا نيرجينيا. أرين يرو very important نبان دوني إن أنا ندلنا بداقو يقو قص لسي إن أنا هبرر وأحيبا إنه هالكم ودسعنايو سيد اللي يسولو جويو إن أيام كشيء كيسنيني مركا واحد تدي وحنا اللي يسقط عدايو أيام كهذا الليو فيديو بهذا قبل يسوى درتي قف أنكرم واي ممسبة ما سعجلي ما حلود وينو ما قرنسا بور لك با marka waxaan ku yiri waxaan hadar habreeray ma wax la ismariyaa sidaan u eekaysiiyay waxay tiri ha wallahi habreer wax la ismariyaa sida dadka u eekaysiiya waxay tiri Soomaalida guryahooda dumarayowga sida isu gooyaan marka tagto isla markiiba waxay ku keenayaan wax cream iyo wax meel ku jiro ma say korayaan marso marka inantan yarna waa inan yaro aad iyo aad u maqaar qurux badan oo ma sha Allah very very natural uma baahna inay wax marsato ilaahay bay haysataa marka waxay tiri inta gabadh aan gurigeeda tagay leeyahay ma iska marso marka san ku dhaw ma anigu waxa ma marsado waxba ku yeeli maayo marso oo maxay yeeli wayso aniga ku arka adigu adaa marsaday oo adigii baan ku arkaa inaad ba iyo hoog ma garanaysaa ka qaadee like who do they think that inay la hadlayaan yey moodayaan inay la hadlayaan markay ku leeyihiin ma iska marso waxba ku yeeli maayo adigii baa baay adigii baan ku arkaa inuu wax ku yeelay ya maamaha ingiriisiga tiraahdaa misery loves company ya qofka farxadda nacabi waa laga wadaa qofka farxadda aan haysani dadkoo dhan wuxuu la nacab yahay inay farxaan ya marka ya ka wararada hoo marso qof aad hadeer saragteen saad u tiraahdaa hoo iska marso adigu do you think dadku inay indha iyo dhagala yihiin way ku arkaan adigay ku arkaan naagahan marka hadda maalin walba la soo geliyo fiidiyowga leeyahay dheelitir maxaad dheelitir kartaa qof baayo balanbalay oo bowdada ka jabayo waxa weeyaan maascagalay u ekaaday iyo xalwad duuduuban oo meel taala muqbad la kariyo digsi weyn ku jirta adoon waxa ku tilmaamo karmaan maansho dulaysta inuu cararayo habeen iyo maalin orod buu ku jiraa iyo nacayb buu ka qaaday alla gabdhaha yaryar ee wadamadan ku dhaldhasha still iyaga maintain gareynaya quruxdii originalka ahayd ee Soomaalida haddayba naagtu 20 jir ama 15 jir ku soo gaadho dhulkii ba iyo hoog ba ku dhacay way iswada lugooyeen inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun alla ilaah xaqaydin tus alla ilaah Soomaaliya maxay qurux aan ku ahayd iyo siday isu galeen subhanallah